maanta waxaan kula wadaagi doonaa 5 qodob oo aad markaasi haddii aad si sax ah u samayso aad noqon doonto YouTuber guuleystay. noqoshada YouTuber guuleystay waxay ku lug leedahay dhowr tilaabo oo aad markaasi adigu sameynaysid. intaan muuqaalkeena gudagalin ka hor waxaan si naxariis leh kaaga codsanaa haddii channelkan subscribe ku ahayn inaad subscribe ii sarto. haddii aad horena la joogteen muuqaalkan like star, sii share garee si ay saaxiibo wanaagsan nagu soo xirmaan sida adiga oo kaleeto. maanta waxaan ka hadli doonaa noqoshada YouTuber guuleystay. waxaan kula wadaagi doonaa 5 tilaabo oo aad markaasi haddii aad si sax ah u samayso aad ku guuleysan doonto ama aad ku noqon doonto YouTuber guuleystay. qodobka koowaad waa mowduuc ama dooro mowduuc. marka anigu saas ku leeyahay waxaa jirto dhalinyaro badan oo markaasi mowduucyo dhowr ah soo gudbiyo oo aan markaasi ku ficneen mowduucyada ay soo gudbinayaan. waxaan kula talin lahaa adiga haddaa aad markaasi noqon rabto YouTuber oo hadeertaan go'aansatay inaad noqoto YouTuber inaad doorato mowduuc aad markaasi ku fiican tahay ama wax aad ka taqaano. marka aan sidaas ku leeyahay mowduucaas aad ku fiican tahay marka aad doorato waxaad noqon doontaa YouTuber markaasi guuleystay. mowduucyada aad ayay u tiro badan yihiin. haddaa rabto sportska ayaad ka hadli kartaa oo aad markaasi muuqaalo kasoo gudbin kartaa. teknolojiyada ayaad ka hadli kartaa oo aad markaasi ayadana muuqaal kasoo gudbin kartaa. ama haddii aad ku fiican tahay cunto karin ayaad ka hadli doontaa oo aad markaasi muuqaalo kusoo gudbin kartaa. waxaan kugula talin lahaa inaad doorato wixii aad ku fiican tahay oo aad markaasi wax ka taqaanid. okay, qodobka labaad abuur mowduuc tayo sare leh. marka aan saas ku leeyahay waxaa weeye dhalinyaro badan oo waxaa jirto mowduucyada ay soo gudbinayaan markaasi tayo lahayn amaba wax tayo oo aan markaasi u sameynaynin. haddii aad mowduucaaga tayo sare aad u yeesho waxaan hubaa in markaasi aad soo jiidan doonto dhalinyaro badan amaba taageero badan aad soo jiidan doonto oo aad markaasina noqon doonto YouTuber guuleystay. marka aan saas ku leeyahay mowduucaaga ha noqdo mowduuc markaasi bulshada ay u baahan tahay ama markaasi madadaalo u ah oo ay markaasi ay ku qasbanaan doonaan in ay markaasi ku daawadaan. qodobkeena saddexaad joogteyn. marka aan ku leeyahay joogteyntu waxay kaa caawinaysaa in channelkaaga markaasi kor u kaco oo taageero badan ay kugu soo xirmaan ama dhageystayaal daacad ah markaasi aad samaysato. mowduuca afraad waxaa waaye waa daawadayaasha falcelintooda inaad markaasi danayso oo aad markaasi falcelintooda aad ka jawaabtaa oo aad markaasi fikirkooda aad dhegeysataa. marka aan saas ku leeyahay waxaa weeye taageerayaashaada ama daawadayaashaada waxay ku tusayaan waxyaabaha ka qaldan. waxaad meeshaasi ka faa'iideysaa wixii ka qaldan ayay kuu sheegi doonaan. wixii markaasi aad ku fiican tahayna hore ayay kugu dhiirigelin doonaan. waxaan kugula talin lahaa mar walbo inaad la socoto taageerayaashaada. mowduuceeni ugu dambeeya oo 5aad waxaa weeye monetizationka. marka aad buuxiso shuruudaha monetizationka sidaa wad ognahay monetizationka shuruudihiisa waxaa weeye ogol wuxuu ahaa 1000 subscribe inaad gaarto 4000 oo saacadoodna YouTube-kaaga markaasi la daawado. hadeertaan waa la bedelay, update ayaa lagu sameeyey. waxaa laga dhigay meeshii 1000 ka ahayd 500 oo subscribe oo markaasi saaxiibo ah inaad gaadho. dhanka 4000 waxaa laga dhigay 3000 oo saacadood in YouTube-kaaga la daawado. kadib waxaa codsan kartaa barnaamijka monetizationka ee dhanka YouTube-ka. sidaas ayaad markaasi ku shaqeyn doontaa amaba xayeysiimada ay markaasi kusoo bandhigaan lacag uga sameyn kartaa. marka waxaan ku leeyahay saaxiib haddii aad YouTube-ka kusoo biirto markaasina aad shuruudahaasi aad buuxiso inaad dalbato monetizationka oo markaasi aad lacag ku sameyso. marka koowaad lacag ka usoo gelin YouTube-ka inaad ku sameyso ama ka sameyso usoo gelin, waayo markaas fikirkaaga waxaa ku save garaysan inaad markaasi lacag YouTube-ka ka sameyso inaad lacag YouTube-ka ka sameyso mana joogteyn doonto in YouTube-kaaga aad markaasi kobciso ama kor u qaado. xasuusnow YouTube-ka ama kanaalka ama YouTuberka markaasi guuleystay markaasi YouTuberka markaasi guuleystay waxaa kaga baxday waqti aad u fara badan iyo dadaal iyo dulqaad. marka waxaa loo baahan yahay inaad la timaado dadaal iyo waqti inaad geliso YouTube-kaaga si aad markaasi aad u kobciso ama kor aad ugu qaado oo meel sare aad ugu gaarto. kobcintaada ama kor u qaadida YouTube-kaagana markaasi si tartiib ah ayaad u sameyn doontaa oo waxaa loo baahan yahay inaad markaasi ku sabirto. haddii aad muuqaalka dhammaadkiisa ila soo gaartay waxaan si naxariis leh kaaga codsanaa haddii aad maalin un wax iga faa'iiday inaad subscribe ii saarto si aan markaasi hadafkeena ah 5000 oo subscribe aan iskula gaarno markaasina aan u kala faa'iideysano. anna waxay ii tahay subscribe-kaas aad ii saartay dhiirigelin. anna waxaan kusoo gudbin doonaa waxyaabo aad markaasi ku anfacaya ama faa'iido ku ah. balanteen waa inaad subscribe ii saarto, TikTok-na aad follow inoo dhahdo. mahadsanid.